sida idaacadaheennii hore ku maqasheen ciidanka xoreynta Ogaadeniya ayaa 16 bishii ina dhaaftay ee May cagta mariyay gabi ahaanba saldhiggii weynaa ee ciidanka wayaanaha ay ku lahaayeen deegaanka Malqaqa ciidamada wayaanaha iyo canaasiirta u adeegta ayaa kadib markay soo galeen deegaanka Malqaqa waxa ay ka geysteen xasuuq baahsan oo waxashnimo ah daba waxa raadiyo xurriyo la soo xidhiidhay goob joogay xaadir ahaa markii ay ciidamada wayaanaha iyo canaasiirta u adeegta halkaasi ka geysanayeen xasuuq wadareedkaasi waxaana waraysigaasi iyo xogta la xidhiidha xasuuqaasi inoo haya wariye Cabdinuur Sheekh Maxamed walaalo waxaan kala soo hadlayaa magaalada Heer waxaan ahay nin u dhashay deegaankaas Malqa dadka lagu gumaaday dadkaas qaabka loo xasuuqay baan wax yarnaan diiqiyay la soo hadlay waan gartay walaal waxaad sheegatay inaad nagala soo hadlayso magaalada Harar magacaadu walaal magacayga inaan sheego ma doonayo ama xagga amaanka darteed ama xumaddiisa darteed waan gartay maxaa ka dhacay deegaanka u dhalatay ee Malqaqa maxaa ka dhacay oo aad noola soo xidhiidhay waxaan la soo xidhiidhay walaal dad rayada oo deegaanka lagu xasuuqay dagaalo waqtiga ka dhacay oo jabhadii iyo isku heleen nimankan ciidamada Itoobiya marka shacabkii oo meesha lagu xasuuqay dad shacab oo inta aan magacooda garanayo 53 qof ah dad kale oo aan garanayno sheegura oo iyaga la gumaaday way jiraan laakiin inta aan garanayo ayaa 53 qof ay deegaanka lagu gumaaday ee mid joogay anigu goorma dadkan la gumaaday oo la laayay walaalo xasuuqa iyo gumaadku xilliga uu sida istabajooga u bilaabmay waxa ahayd bishii shanaad 16keedii inta ka dambeysayna uu si korbu u sii filayaa waxba kama hoos ma dhacayo ilaa hadda uu gumaadku uu socdaa oo dadka inta la gumaaday mooyee intii kale deegaanka joogtay xataa imika waxay ku xireen Baabil iyo Bambaas dadka qaar waxa lagu laayay markii xabsiga la keenay Baabil iyo Bambaas la keenay ayaa laga baxay meel farqi yar u dhaxeeya Goro iyo Bambaas ayaa rag ay kamid yihiin culimadii meesha ugu waaweyned ayaa halkaas lagu laayay farqi yar xataa lama aas dadka meedkiisa ilaa way yeelaanba lafoodi meesha way yeelaan sagaal qof hadda farq inta laga baxay tuulada Bambaas laga baxay goor habeenimo yaa farqi yar Bambaas iyo Goro u dhaxeeya lagu laayo meedkoodi ilaa imika yeelaaba dadka la gumaaday ee la xasuuqay dhowr iyo 50 qof aad magacyadooda aad u garanayso ma waxa lagu laayay Bambaas iyo halka aad sheegayso Gorayga mise meeshii uu dagaalku ka dhacay hawlgalkii magaalada Malqaqa maya walaal dadkan waxa lagu laayay laba meelood baa lagu kala laayay waliba 3 meelood meesha dadka lagu kala laayay dad waa dad markii la soo qaaday waqtiga dagaalka soo dhacay dagaalka kadib la soo qaaday oo la keenay xabsiga la keenay Bambaas kadibna xabsiga lagala baxay oo meel ku dhow Bambaas lagu laayay badna waxa lagu laayay meeshii Malqaqa iyo qabalayga ku xigo oo isna leeyahay kuradilay iyo qabalayga kale ku sii xigo oo garsa leeyahay ama suubada 3 meelood baa lagu kala laayay dadkaasi la laayay dhowr iyo 50 wax ehelkaaga adiga ma ku jiraan dhammaan walaal dadka aan ku tirnay 3 ku tirnay oo raafti weeyaan cid aan ehelkayga kuma jirto dadkaas adigu marka siyaad uga baxsatay adigu xagga hoose ka yimid Axmed iyo ka yimid guraaga markaas koob meesha xoogada ay soo doontay in magacooda garanayn dadku waa dhowr iyo 70 laakiin inta deegaanka u dhalatay aan garanayo 350 ee raafkayga aniga adigu maadaama aad goobjoog markaa ka ahayd meesha uu gumaadku ka dhacayo dadka lagu gumaadayo inta aan xafiyada lagala bixin seed uga baxsatay adigu walaal si ilaahay uu og yahay waqtiga saacadan baa gaadhay oo si ilaahay uu og yahay baan uga soo baxay oo hadda saacadayda baa dhimay adigu marka aniga gacanta rag faraay kuma dhigin meel kale u baxsadana waan garan waayay xaggan inaan gudihiisa tan soo baxsaday ku kaliftay waayo ni qof jilicsan oo waxaan aan awoodi karinay meel kale u cararo xag magaalooyinka inaan soo cararo mooyeene dadkan la laayayna dumar iyo carruur buu ku jiraan waan gartay gumaadkaasi iyo xasuuqa dhacay kadib iyo hawlgalkii 16kii dhacay hadda xaaladda aagaasi waa sidee ee nabadgelyo ma degan tahay dadkii magaalada ma ku soo noqdeen saldhigyadiisa ciidamada gumaysiga Itoobiya ma ku soo laabteen oo laga qabsaday maya walaal inta u dhaxaysa Bambaas iyo Axmedow dadku waa laga qaxay dadka shacabka beeri iyo raashinkii oo sidii u daadsan ayaa laga qaxay waxa hadda maalmahan la isoo sheegay dad safar oo ka yimid marka soo galay Baabil shalay iyo daraadiyo soo galay waxay ii sheegayeen hatta dumar meeshii joogeen hadda dib loo laayo loogu noqday dadkii wixii rag ah iyo wixii dad ay ka cikiray uu ka baxay oo ilaa 200 kilomitir dhul dhan hadda oo shakhsi degan ma jiro beeri iyo wadaad soo haray wadaadaha xataa lagu laayay hadda la sheegaya waan gartay dadkan la laynayo madad la yaqaano oo caan oo ama xiriir jabhada la leh ama magaalada ragii ugu caansanaa ahaaba mise wax alla wixii la arkaa ama ribaadiyaha ama magaalada lala kulmee waxa weeye sida loo dilaya
ما ولا الواحد ضد قوات ضد عامل لكن ضد حديد مركز جبهة لا لها ما هنا وضد ماشي مركز جبهة ماشي اسكو هلان dhibaatadii gaadhay nimankan ciidamada Ethiopia gumaysiga dhibaatadii gaadhay darteed baa xanuunkiin baa dadkan loo laayay marka dambe dadku wax dad xidhiid la lahayn waa dad rayado waxa kamid ah imaamkii meesha deegaanka ugu weynaa deegaankaas galaasho dhan malqa galaasha laga xukumaa deegaanka galaashe imaamkii ugu weynaa baa kamid ah iyo odayaashii duqeydii ugu weynid baa kamid ah dadkan marka xidhiid ay la lahayn ma jirtaa yartay xataa wax la shaqeyn jiray qaarkood dawladda uu shaqeynayeen baa si lagu ogaabo lagu tuunsanaada imaamka magaciisa iyo odayaasha aad sheegaysay ugu weynaa meesha ee la laayay wax ma noo sheegi kartaa magacyadooda ها ولا الإمام كوحوا شيخ أحمد نور شيخ عبد ساعد odayaasha kale ee caanka ka ah magaaladana odayaasha caamka oo Mustafa Ibrahim oo isaga wiilkiisina mudada toddobaad ka hor ay wiilkiisa curadna ay halka lagu dilay oo waliba dhagax lagu dilay wiilkiisa xataa laba dhagax midna madaxa loo dhigay midna muxuu ahaa lala kor istaago dhagax baa lagu dilay xabad lagu dilay wiilkiisa markii dambena waa la gogoyay wiilkiisa si qaraad baa loo dilay aw aadan saxane kamida oo Mustafa Ibrahim baa kamida oo ka wiilkiisa ku sheegaya حسن محمد جدي حسن الله يسقي ويلكيس إسرائيل بكمدة ويلكيس عرض وإسنا إسرائيل الماء أحمد رويدود وإسلامه إن محمد عبد الله علي بكمدة يوسف أحمد شوم بكمدة أو لين عانا كأحد ديانك إن مولد أحمد شوم بكمدة إن محمد يدور بكمدة وان قرطي dadkaas oo dhan ma waxa loo laayay in ay jabhada xiriir leeyihiin yaa loo laayay oo ay macnaha ama lagu tuumay ama Etoobiyaanku ciidamada Ethiopia ay ugu marmarsoonayaan mid waa waxa saf laga maray dadka shacabka walaalow dadkan intii kolkii meesha dagaal ka dhacay jabhadu ka baxday kolkii ay ciidamada Ethiopia yimaadeen looma aabadeen wixii dad la soo ururiyay wixii ay la arkay dadka intii ka badan ay wasiiba qatay wixii la arkay la soo ururiyay hal shakhsi laga tagin ba waan gatay maxaa tiim la maray maadaama meesha ciidamada lagu gumaaday dadka ka dambeeyay tiim baa la yiraahdaa halkaas dadka saas lagu laayay gumaadkiin waxa wada weerarku markuu u dhacay 16 maadaama aad goobjoog ahayd oo aad joogtay magaalada Malqaqa ee uu dagaal ka dhacay xarun intee leeg baa ciidamada Ethiopia soo gaaray ama khasaare intee leeg walaalow khasaaraha waxa ku qalifay in shacabka saa loo gumaado waa khasaare ciidankii kolka hore goobta joogay ee goobta ay jabadu qabsatay ciidankii joogay 12 qof ka baxday ciidankaas oo xagga Ethiopia kor u soo baxday marka ciidamada marka dambe xagga tigtiga ay intaas iyo 12 ay soo raaceen weeyaan ciidanka meesha ku noqday marka dambe xanuunka shacabka u geystay 270 iyo waxbana ciidanka marka meesha kolka hore laga laayay ciidamada Ethiopia marka jabadu marka ay qabsatay saldhigyada ku yaala magaalada Malqaqa mid la kulato mid u khudbeeyaan ama mid la hadleen way hadleen laakiin anu marka hadalka kuma sugin jabada dadkii waxaan ka baqanay in nimanka lagu soo gaaro dadka marka xilligaas maadaama nin iska filaysana xagga dadka galbeedka soo baxsaday marka anu waan gartay gumaadkan iyo xasuuqan inta la eeg wax hay'ad ah oo idin timid ama wax ka tiri oo hay'adaha ka shaqeeya wadankaasi Ethiopia ama ogaadeenaya ma jirtaa ma wal wax hay'ad dhulka kama qayb oo ka hawlgalaaba ma jiraan ba hay'ad ma aragnaba dhulka waa dhul jaaka waa dhulka way xirantahay jidka wax gaari oo socdaba sanadki maalin baad arkaysaa wax gaari kolonyo ciidan oo socota moogi meel la arka ma baawur kale iyo hay'ad iyo caasimad timaashka ma jirto waata waan gartay maadaama aad diiday magacaada inaad sheegto hawlo nabadgeliyo arrimaha nabadgeliyo awgood maxaad leedahay maxaad dhihi lahayd caalamka hay'adaha xuquuqul insaanka maxaad odan lahayd hay'adaha xuquuqul insaanku haday hay'adaha dadka danaya xuquuqul insaanka la sheegay wax ka dhab uu jiray ka soo war helaan oo arkaan dadka alaan xataa meedkiina way yeelan 250 kilomitir hadda wax shacab oo aba yaraatay jooga waxa ka daroon inta ku sheegay dadka cid xoolii ciidamadu way wada qashay wala qalqashay xoolaha ilaa 500 oo neef gaaraya meesha lagu qashay ariga loo balay oo ciidamadu ay cuneen inta meesha fadhiya lagu cunay marka dadka qaxootiga meel loo qaxana ma jirto iyo dhanka hooste way ka xidhanayeen dhanka xuduudaha way ka xidhanayeen dhanka u xidhaayeen marka dadka arkaan ma lahayd caalamka iyo caalamka arkaan oo indhooda wala tagaan dadkaas si ay wax ugu qaban karaan haday bilaadnimadu ka dhabtahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wareysanayay muwaadin u dhashay Ogaadeniya oo goobjoog u ahaa xasuuqii ay ciidamada wayaanuhu ka geysteen deegaanka Malqaqa هذا ما هو أفكار ما حد وحيرتين
هذا ما هاوتوضو أفكار ما حابو حيرتين النور ويكتين وقعان مستيسان قولوا لها تقريبو وقابيه كلك عين وقابيه